بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا وروحي دالك يدافع عالم كي نغسو غاري واد كداوتان شاشة تلفزيون كعالمي CW warkana waxa idin la socodsiinayo anigoo ah Mawlid Galwaaq qodobada kuwooda ugu door corona aad ku daawan doontaana waxa kamida dagaal la geystay qasaare dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaanka furinta fooro ee dalka Itoobiya madaxweynihii hore ee dawlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo gaaray magaalada Dhuusamareeb gudoomiyaha degmada Cabudwaaq oo amar ka soo saaray qaadka ka yimaada dalka Itoobiya ee soo gaaray magaalada Cabudwaaq dadkii ugu badnaa oo ka barakacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed oo maanta ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2020 shacabka ku nool magaalada Buurdhuuba ee gobolka Gado oo ka hadlay qalab wasaaradda caafimaadka ay gaarsiisay gobolada dalka oo aan la gaarsiin gobolka Gado qodobadaas iyo kuwa kale ayaad goordhow ku daawan doontaan warkii oo fidsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal iminkana ku soo dhawaada warkii oo fidsan dagaal la geystay qasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaanka furinta foore oo ku yaala dalka Itoobiya gaar ahaan xuduudda ay Soomaaliya iyo Itoobiya wadaagaan sida warbixintan inoogu faahfaahinayo wariyahayaga Mahad Bashiir Cismaan tiro gaaraysa 9 ruux ayaa ku dhimatay 15 kalena way ku dhaawacmeen dagaal maalintii labaad ka socda deegaanka furinta foore oo ku yaala xadka Soomaalida iyo Itoobiya dagaalkan oo u dhaxeeya laba maleeshiya beelood ayaa ah mid culus asagoona bilowday subaxnimadii hore ee saakayto dagaalkan oo ah mid culus ayaa waxa la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan ayadoona gurmudyo kala duwan ay deegaanada labada maleeshiya beelood ay ka soo gaarayaan taasi oo ka dhigan in dagaalku uu sii xoogaysto marba marka ka dambaysa xiriir kala duwan oo aan la sameeyay labada dhinac ayaa noo xaqiijiyay in dagaalku ilaa iyo haatan uu socdo lagana cabsi qabo inuu sii socdo haddaan la helin cid si kala dhexgasha dhaawacyada kala duwan ee dagaalkani ku dhaawacmay ayaa waxa loo soo kala qaaday magaalooyinka Cabudwaaq iyo Cadaado ilaa iyo hadda ma jirto dadaalo lagu doonayo in lagu joojiyo colaadan ka soo cusboonaatay deegaanada furinta foore oo ku yaala xadka kana tirsan gobolka Doolo ee deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya waa Mahad Bashiir Cismaan Mahad Xilif telefishinka caalamiga CW degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa gaaray magaalada caasimadda ah ee Dhuusamareeb sida uu warbixintan inoogu soo diyaariyay wariyahayaga Daahir Yare madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug duuleedka deegaanka Godinlaba ayaa waxa uga hortagay madaxweynaha Galmudug ku xigeenkiisa Cali Daahir Ciid xildhibaano isugu jira heer federaal iyo heer dawlad goboleed iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Galmudug waxaana intaa kadib loo soo galbiyay xarunta madaxtooyada ee magaalada Dhuusamareeb halkaas oo si wada jir ay warbaahinta kula hadleen madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo madaxweynaha cusub ee Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor Xaaf ayaa sheegay inuu ka tanaasulay xilkii madaxweynaha isla markaasina uu la shaqeyn doono maamulka cusub ee Galmudug iyadoo dhinaca kalena madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor uu sheegay in maanta ay Galmudug gaartay hawl muhiim ah isla markaasina ay dhamaadeen wixii khilaafaad ee ka jiray gudaha deegaanada Galmudug waxaan rabaa inaan ka cadeeyo wax walba oo kala duwanaanshaha oo jiray waa ka heshiinay aniga iyo madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf khilaaf iyo tabasho Galmudug dhexdeeda ku hartana ma jirto waa ilaahay mahadiis aragtideennii ahayd qorshaheennay ahayd inaan walaal kasta meesha uu wax ka tabanayo iyo sidoo wax tabanayo inaan ugu tagno ninkii ugu muhiimsanaa oo Galmudug san hore u soo sheegnay ugu muhiimsanaana maantay ayuu Galmudug u tanasulay odatinimadiisii shalay lagu yaqaanana uu ka dhabeeyay waxaan leenahay mudane Axmed Ducaale soo dhawow madaxweyne
dadkaagii dalkaaga ku soo dhawow sharafay kugu hayaan odagoodii baa tahay odageennii baa tahay shalna taariikhaad u dhigtay maantana taariikh baad u dhigtay waxaan ku leeyahay waxa intaa ka dambeeyana tashi iyo talo iyo odaygeed fadhigaad galmudug u tahay maanta waa maalin aad iyo aad qiimo badan ugu leh galmudug runtii waxaan rabaa inaan reer galmudug sheego iyo dadka soomaaliyeed oo dhan alkhilaafu fitna walfitnatu ashaddu min alqatl qof kastaa inuu intaas calooshiisa geliyaa la rabaa nagu waxaan soo dhirtinay iyo waxaan wax badanna maanaan maqnayn xoogaa yar bay iyadoo kululaysee haddana waxaan rajaynayaa odaygii waa tanasulay waa la tuurayaa la odhan aad iyo aad buu idinku mahadnaqayaa soo dhoweynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo raalli ahaada dadka ku tiri dhaqaan anugu wasiirada iyo xildhibaanada iyo saxaafadda iyo ummadda carrada joogto o dhan kulligiin aad iyo aad baad mahadsantihiin sida buruqda badan noo soo dhoweyseen 60 kilomitir baad naga soo dhoweyseen arrin sahlan maaha ilaahay waxaan ka rajaynayaa galmudug inay raysato dadka kulligood galmudug inay raysataan loo baahan yahay galmudug dhibaatadii sii haysto lama baahna anugu geed fadhi keliya maahaye waxaan rabaa inaan iska fadhiyo galmudug maba ka tegaayaba xamar damba uma socdo ogow inaan jidadka iyo dekadaha iyo inaan isaan rabo halkaasaan iska aadahay ayadana waxaan rabaa halaygu soo taakuleeyo yah rag badanoo meesha joogow war igu soo taakuleeya laba shilafada ka daaya warku waa inoo dambeeyaa habeen dambe iyo marba xaflad dhigin doonaa aan maaragtay si fiican u kaftano aad iyo aad baad u mahadsantihiin galmudug waa mid laba maaha saacaddan laga bilaabo maxamuud cabdi daaharyare ZWTV Dhuusamareeb gudoomiyaha magaalada Caabudwaaq ayaa amar ka soo saaray qaadka ka yimaada dalka Itoobiya oo soo gala magaalada sida uu warbixintan inoogu diyaariyay wariyahayaga Mahad Bashiir Xilif gudoomiyaha degmada Caabudwaaq Mahad Cumar Cilmi oo wareysi siinayay telefishinka caalamiga ah CWTV ayaa waxa uu wareysigiisa kaga hadlay dhinacyo badan gudoomiyaha oo ku horumaray dhinaca qaadka ayaa waxa uu sheegay in maanta ito oo 6 bisha Abriil laga bilaabo uusan qaad dambe soo gali doonin deegaanka qofkii lagu qabtana tilaabo sharci laga qaadi doono arinta muqaadaraadka qaadka oo runtii Soomaaliya meelo badan guud ahaan la oran karo waa laga joojiyay annagana hadda wali saameynta nugu leh maanta ay ballankii aan u qabanayna oo maanta u dambeeyo waxaan leenahay berri laga bilaabo caawa laga bilaabo loo istaago fadhiga loo kaco si wada jir ah shacabka iyo maamulka iyo ciidamada amniga isku duuban hal laga hortago hal badbaadiyo ummadda ilaahay baa badbaada iska leh inagu dadaal baana la faray dadaalkanaga la nimaadno qof kasta intuu kari kara hal soo diyaar garoobo waxaan oo diyaarsan anaga ciidan amni xoogan baa noo jooga oo dawladda dhexe iyo galmudug ba ay soo amartay shacabkanaga oo kaashanay ciidamada amniga dhamaanteena ka hortagno shacab iyo ciidan isku duuban cid ka adag ma jirto gudoomiyaha oo sidoo kale ka jawaabayay eedeymo qaar kamid ah warbaahinta ay u soo bandhigaysay taas oo ku saleysneed halka ay madha canshuurta degmada ayaa ku jawaabay sida tan horta waxaan leeyahay in la isdhaliilay waa wax aad u qurux badan dhaliishana waa inay noqotaa dhaliil wax toosin ah oo lagu toosinayo maadaama nolosha iyo deegaanka iyo wax bay naga dhaxeeyaan in qofka la saxo aysan noqonin inta qofka dhaqaaqaya isku xilqaamay in la baabi'iyo aysan noqonin cid kasta oo na dhaliisha oo waxa aan wadno dhaliilo ka soo jeedisa haddana dhaliilahaas wax looga gudbi lahaa inay nala wadaagto aad baan u jeclahay waana soo dhaweynaynaa oo waa inay markay cudurka arkaan caafimaadkiisina
waa inay sheegaan waxaa deegaanku leeyahay golo guurti ugaaska beeshada jooga waxay leedahay culum awdiin waxay leedahay ganacsato waxay leedahay bulsho aad u fara badan oo kulamo joogta oo toddobaadla isugu timaada isla xisaabtankuna goobtaas ka dhaca runtii ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada ayaa waxa uu baaq u diray beelaha walaalaha ee ku diraraya deegaanka Furinti Foore asagoona sheegay in loo baahan yahay in xabadda la joojiyo waqtigan ay ku habooneen in deegaanku uu wali ku jiro xilli colaadeed bilowdaan dagaalka hadda ka socda ilaa shalay ka soconaya meesha la Furinti Foore oo dad walaala oo dhaqan iyo diin iyo dhalasho iyo wax walba ay ka dhaxeeyaan ay ku dirayaan runtiina wax buuran oo hadda in dad ku leeyahay sababi kara meesha ka jaan garan karin waxaan leeyahay dawladda galmudug madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen kale inay arintaas sidaan horeyba baaqa ugu jeedinay ay arinta u soo jeestaan oo indhaha ku qabtaan ciidamada amniga u diraan dadka la kala celiyo walaalaha ah la kala nabadgeliyo cid walba nabadgelyo daaqsinta ku daaqdo waa mahad bulshada Cismaan Maad Xilif telefishinka caalamiga CW degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud shacabka ku nool magaalada Buurruubo ayaa ka hadlay qalab ay wasaaradda caafimaadka gaarsiisay gobolada dalka oo laga qadiyay gobolka Gado sida uu warbixintan uu inoogu soo diray wariyaha inooga soo warrama magaalada Buurruubo Cabdullaahi Macruuf gobolka Gado waxa uu ka mid yahay 18 gobol ee uu ka kooban yahay wadanka waxa uu dhaca gobolka Gado koonfurta Soomaaliya gobolka waxa uu xuduud la leeyahay laba wadan waa Kenya iyo Itoobiya maanta adduunka waxa uu la daalaa caabuqa faafitaanka badan ee coronavirus ama COVID-19 Soomaaliya ayaa laga helay dhowr kiis oo caabuqaasi ah wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay magaalooyin ay ugu talagashay in la geeyo agabka looga hortago caabuqa coronavirus-ka ama lagu baaro gobolka Gado ayaa gabi ahaanba ka maqan jadwalkaasi iyadoona uu yahay gobolka Gado mid dhowr xad kulansada ayna u fududahay inuu halis geliyo caabuqa COVID-19 waxaa ka ra'yi dhiibtay arrimahaasi qaar ka mid ah bulshada degmada Buurdhuubo ee gobolka Gado waxayna yiraahdeen aad aan uga xunahay bahda caafimaadka hadii aan nahay magacaygu waa Dr. Axmed Cabdi Faarax waxaan aad uga xunahay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya dhibaatada ay ku wado gobolka Gado 5 bilood ka hor hay'ad waxay xaqiraad ay ku samaysay degmada Buurdhuubo haddana waxay xaqiraad caadi ah ku samaysay gobolka Gado saas oo tahay marka haddana waxa aad looga baqayaa cudurkan dilaaga oo COVID-19 waxaan dawladda marka Soomaaliya aan uga xunahay in ay ka taxadar weydo xuduudaha Itoobiya iyo Kenya sababtoo ah qofkii Nairobi ka imaan toos u imaada Buuraxawo qofkii Itoobiya Addis Ababa ka imaan toos u imaada degmada Doolo xaqiraadaasna waxa aad ugu wado aad tireeda ugu tiigsanayo wasaaradda caafimaadka wasiirka caafimaadka Soomaaliya marwo Fawzi Abikar Nuur marka gobolkan state-kan Jubaland waxay ka magacowday Kismaayo Airport iyo Jobe kastamkeeda waxay timaadeen gobolka Gado 300 iyo 50 kilomitir ka badan masaafo leeg wuxuu xuduud la leeyahay Itoobiya iyo Kenya marka hore xaqiraad u taagni haddana xaqiraadu way sii balaaratay ay wasiirada gobolka Gado ku waqayso wasiirada horta juqraafiga dib ugu laabato inaysan barnaamijkan soo bixin oo ina dadka la wadaagin marka warkii waxa ku soo gabagabeynaya wasiirka koowaad ra'iisul wasaare Xasan Cali Xigre iyo madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka Masal horta gabadhan ay nagu soo fasaxeen hal xisaabtamay saaruna 5 bilood ka hor wasiiradu waxay maaragtay si cad u xaqirtay oo waliba ku jeestay degmada Buurdhuubo oo la tacaalaysay caafimaad darro iyo isbitaal la'aan la tacaalaysay waxaan ognahay gobolka Gado oo ah gobolka labaad ee ugu weyn gobolada Soomaaliya ahna gobolka maaragtay gobolka ugu xuduudo badan ah oo Itoobiya iyo Kenya xuduudo la leh degmada Doolo بلد حاو يعلوا أو علوا أي كي حدود لا بلد حاونا كي يتوبي حدود إلا لا
dowladuna ay maaragtay ay Ethiopia ay xuduud la leh aysan intuba kusoo darsan marka waxaan leenahay haddii ilaahay subxaana watacaala ogolaado barnaamijkaas cabashaa ka nahay wasiiradda raba inoo dayacday inaanu uga fiirsanin ra-iisul wasaare khayre baan si caadi ola hadlaynaa haddii ra-iisul wasaare haddii barnaamijkan uu sii socdo uuba sii socday hadda intii lagula samayn karo waa lagula sameeyey macluhu waxay ka dhigan tahay adigu naftirkaaga inaad reegadaha u codadaysan tahay waxaan salaamayaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan salaam qaali ah waxaan salaamayaa shaqada wariyaha ee macruuf gobolka Gadow wuxuu xuduud leeyahay laba gobol si fiican u dhageysta Soomaaliya laba gobol buu xuduud leeyahay Ethiopia iyo Kenya labadaba xuduud buu leeyahay labada gobolba positive way not negative still wasaaradda caafimaadka haddii ay xaqirto oo dhinacii kale tan ay xaqirto maxaa laga filayaa shaqada Soomaaliyeed baan xaq baan leeyahay inaan mucaaradamo inaan hadallo ku adeegsado inaan wasaaradda wadnama matasho waxyaabo badan please marka annaga waxaa ka dambeeya waxaan si xushmad iyo qadarin leh u codsanaynaa bal in fiiro gaara loo sameeyo dal xuduudiisa uu leeyahay laba wadan gobol baan u socnaa gobol laba wadan xuduud leh labada wadanna ay positive yihiin maxay mudan yihiin waa su-aashaan weydiinayo wasaaradda caafimaadka ma wuxuu mudan yahay in laga jeesto mise wuxuu mudan yahay in loo gurmado halkii qof oo ku dhintay ilaahayna waa idinkula xisaabtamaya annaguna waa idinkula xisaabtamaynaa haddii aan badbaadin cabdulaahi macruuf warbaahinta CW degmada Buurdhuubo ee gobolka Gadow dadkii ugu badnaa ayaa ka barakacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose oo bariyihii dambe uu ka soconayay dagaal beeleed sida uu warbixintan uu inoogu faahfaahinayo wariyahayaga Mahad Dhukane Yuusuf saacadihii la soo dhaafay waxaa barakac uu ka jiray degmada Walaweyn oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo dagaal geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac uu ku dhexmaray laba maleeshiya beeleed dagaalka ka dhacay Walaweyn ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay tuulooyinka qaar ee degmadaasi waxaana halkaasi ka dhacay fal dad badan ay ku tilmaameen kii ugu xumaa kadib markii qof la dilay kadibna meedkiisa la gubay inta badan dadka ku nool degmada Walaweyn ayaa barakacay iyaga oo ka cabsi qaba inay waxyeello ka soo gaarto dagaalka oo markii dambe isku bedelay in guryaha dadka lagala soo baxo wararka sidoo kale aan ka helayna degmada Walaweyn ayaa waxa ay sheegayaan in sidoo kale inta badan goobaha ganacsiga iyo waxbarashadu ay yihiin kuwa xiran sidoo kale waxaa soo baxay baaqyo kala duwan oo loo dirayo beelaha halkaasi ku dagaalamaya Mahad Dhukane Yuusuf telefishinka caalamiga ee CW magaalada Caabudwaaq xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ayaa ansixiyay maanta miisaaniyadda sanadka 2020 sida uu warbixintan uu inoogu soo diray wariyaha inooga soo warama magaalada Baydhabo Khalid Cabdi kulankii toddobaad ee baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ayaa maanta lagu meelmariyay miisaaniyadda 2020 oo soo gudbisay wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed 87 mudane oo soo xaadiray kulanka ayaa 84 ka mid ah u codeeyay in miisaaniyad sanadeedka koonfur galbeed waxaana natiijadii ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Danjire Cali Saciid Fiqi hal qofna waa ka aamusay qof labaad kala jiro aan mowqifkiisa la ogeyn marka sidaas ayuu maaragtay miisaaniyadii ku ansaxday inta la socda marka waa mahadsantihiin waxaan ku xijinaynaa ajintaa ugu dambeeya oo ah in laydin jeediyo nuqul sharciga dhulalka dowlad goboleedka koonfur galbeed sharciga maaragtay hala soo akhristo saacaddaa laga bilaabo baarlamaanku waa fasax ilaa iyo arrinta coronavirus maaragtay meel u dhacdo sidaas darteed waa idin soo ogeysinaya fadlan xafiiskana kasii mara boodkii waa la keenay sharciga waa la keenay marka sidaas ayaan isku ognahay intaa kadib xildhibaanada ayaa loo gudbiyay hindisi sharciyaadka dhulalka si ay akhrinta koowaad u soo marsiyaan kaas oo ay u soo gudbiyeen wasaaradda howlaha guud ee koonfur galbeed Khalid Cabdi Ibrahim telefishinka caalamiga ah CW magaalada Baydhabo Jannaay guud ahaan daawadayaal intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa war wixii dalka iyo daafaca caalamka inaga soo gaaray
oo aad ka daawataan shaashada telefishinka caalamiga ee CW aniga iyo dhammaanteena waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo ammaano Allah iyo is arag dambe oo xiiso leh